وحساس وحوق لي والدين كوير دين كوي وقفك مقام احترام وين ويليا قفك قبصده أيانا ساس نقنا يوير ومدى شرفنا كويا لنا يا الدنيا آخرنا إلهي سبحانه وتعالى جندي سأكون ارتقاء العزة جل جلاله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلده على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها. الحمد لله والعيال. الله يعطي هذه الدنيا وزينتها لمن يحبه ولمن لا يحبه ولا يعطي العلم النافع إلا لمن يحبه ويصطفاه ويختاره ويجتبيه. إلهي سبحانه وتعالى والعيال الدنيا دلال كذا ذهب كذا يا دولار كذا عدو جعلي أنا إلهي وصيا عد إلهي ونعبيه أهل النار أنا إلهي وصيا والعياذ بالله. محايا لي الدنيا وح وزني iyo wax qiimo ah oo Ilaahay agtiisa ay ka leedahay ma jirto. sidaas awgeeda adduunyada siinteeda Ilaahay kuma kala sooco kani ma ku jecel yahay ma ku caabudaa mise waa faajir adiga ka soo horjeedo ku beeniyay ma u kala fiiriyo Ilaahay adduunyada. maxaa yeelay waa waxaan wasni iyo qiimo aan lahayn laakiin Ilaahay waa u kala dooraa diinka dadka. Ilaahay waa u kala dooraa oo waxa weeye diinka إلهي مسيو إلا قفوا إلهي دورتي وإلهي وجعليه ماهن بدليل قوله تعالى محايا لله سبحانه وتعالى وحليه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كتاب كأنن وحن لحل أسينا كوي أدومدنا أن نكدورني marka ogow daalibul cilmiga madrasadan iyo madaarista la midka ah wax ka baranaya meeshan wuxuu ku imanayaa xalqada cilmiga istifaa min Allah subhanahu wa ta'ala doorasho ilaahay ayu xalqada marka horeba daalibku ku soo fariistaa koow waa in ilaahay ku doorto intaadan xalqadan aadan soo fariisan. qofkii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu doorto ayaa gogasha cilmiga soo fariista lagu mana marti qaada oo ilaahay nafaxaadka meesha ilaahay uu ka bixinayo iyo cadaayaadka iyo barakaadka meesha yaala qofkaas baa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku marti qaada. nabigeenuna sallallahu sallam wa baraka alayhi xadiiskii saxiixa wuxuu ku yiri man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi diin. qofka ilaahay khayr uu la doonayo diintaanu ilaahay fahamsiiya. marka xadiiskaas wuxuu iska leeyahay mafhuumul mukhalafa. mafhuumul mukhalafada xadiisku leeyahay waxa weeye oo laga fahmayo qof aan diinkaas nasiib laga siinin khayr sidaas uma haysto. qofkaas khayr sida u weyn lama doonin wax weyn lama doonin laakiin khayr weyn waxa la doonay qofka diinkaas xalqadiisa ku soo fariisanaya oo diinka ku fekeraya baranaya faafinaya qarash ku bixinaya qofkaas weeye qofka ilaahay uu khayr la doonayo subhanahu wa ta'ala. walidaalika walaalayaal qofka taalibul cilmiga ah fadliga iyo qofka caalimka ah ee diinta barta fadliga qiimaha ilaahay agtiisa uu ku leeyahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxa uu tilmaamay qofka la majeersanayo inuu isaga yahay qofka caalimka ah ilaahay ku xiran wariya asagoo kale ka dhiga ya wala majeersadaa uu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam. caalimka ee cilmigiisa ku amal falaya diinka ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nasiib ilaahay uu ka siiyay wala majeersadaa uu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam. xadiiskii Bukhari iyo Muslim ay warinayeen
ayaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri laa xasada illa fi ithnatayn laba qof baa la majeersadaa laba qof ayaa la yiraahdaa iyagoo kale yaa ka dhiga rajulun aataahu Allahu maalan fasalladahu ala halakati fil haqq qof ilaahay hanti xalaala ilaahay ugu deeqay meel ilaahay raali ka yahana ku bixinaya qofkaas oo kale yaa ka dhiga sida uu yeelayo aad yeeshide yaa waa la yiraahdo nabiga sallallahu alayhi wasallam waa la majeersadaa qofka labaad wuxuu ku sheegay nabigeena sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi wa rajulun aataahu Allahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha qof ilaahay xikmad uu siiyay xikmadaasna waxa laga jeedaa al-ilmu an-naafi' qof ilaahay xikmad uu siiyay oo diin naafica iyo cilmi naafica ilaahay uu siiyay waa la majeersadaa marka qofka diinka xambaarsan waa qofka bulshada laga majeersado waa qofka bulshada la yiraahdo isagoo kale yaa ku gaarsiiya oo ka dhiga mustawaha iyo heerka uu marayo yaa ku gaarsiiya qofka la yiraahdo walidaalika qofka diinka xambaarsan kuna toosan ee diinkiisa ku amal falaya malaa'ikta ilaahay ayuu noo sheegay nabigeena sallallahu alayhi wasallam inay duceynayaan wal darajada la gaarsiiyay fiiri qofka diinka xambaarsan malaa'ikta u duceynaya makhluuqaadka oo dhan u duceynaya yaqilkooda iyo malaa'ikooda hatta malaa'iga badda ku jira ayaa u duceynaya yiri nabigeena sallallahu alayhi wasallam ya inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala muallimi an-nas al-khayr hatta al-hut fi al-bahr xadiiskii tirmidigu warinayay ilaahay malaa'iktiisa hatta malaa'iga badda ku jira ya waa u istighfar dalbayaan adoonkaas diinka xambaarsan ay u istighfar dalbayaan qofka hadduu daalibul cilmi yahay jidka ilaahay uu raaliga ka ahaa ayuu ku socdaa noloshiisana uu ku dhamaysan meel ilaahay wada ilaahay raali uu ka yahay ilaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam daalibul cilmiga wuxuu ku tilmaamay qofka daalibul cilmiga qofka فهو في سبيل الله حتى يرجع جدك إلهي أيو كسعدا إلى قرقيس وقصوا الله بنايو هدو جدكاس وكوغيريو دنا أساقو الشهيد أجرك الشهيد كهيليا أيو دمناها يا هو النبي صلى الله عليه وسلم مرك الدينك ولا ريال وشرف الدنيا وجنة آخرتنا وجنة قفك الدين كيس هدو نافع النقضة الدنيا دنا إلهي سبحانه وتعالى ذاتك قلوب تودو إلهي جعل ليسيا آخرنا إلهي جنديسو كمرتقى ذا مقعيسو نبمدنتو هدو حتى إساقو قيريودو مقعيسو واسيرنا ولا ذا إلى قيام الساعة قفك الدين كإلهي سبحانه وتعالى أسيي ونصيب إلهي الدين كأكسيي مقعيسو ذاتك مؤمنين تقلبقو ذو كسو النولان إلى قيام الساعة ودركتان علمدي وقلال سنة كهر دمتي مالو والبوات مقعودي الله يو والله دعينا يو والله حسيو وقلبي قال لك جعلي هاي وقفل باولي هاي يا مقام كويكو غارسي ولا مجارسنا يو ايو انت اسو سنة كهر دنتي marka qofku haduu diinkan xambaaro asraartii koonka ilaahay uu siiyay sirtii koonka sirta koonku waxa weeye diinka inaad barato kuna amal fasho sirta nolosha qofka fahmay waa qofkaas noloshan sir ay leedahay mafaatiix ay leedahay furayaal ay leedahay furayaalkaas iyo sirtaas iyo asraartaas waa diinka naafica qofku inuu barto kuna amal falow walidaalika adduunya aakhiraba xushmad iyo maqaam ayuu leeyahay qofka caalimka ah ee diinka xambaarsan sheekhan muxaddiska la yiraahdo ibn salaah kitaabkiisa muqaddamada ah ee mustalahul hadiiska uu uga hadlay قصو كسو غوريي وحير إمامكي وينا تابعي هايو الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري أيا وحوي من عبد الملك بن مروان أي أسو مرتيي مركاسو يري زهري يو هرمكا كورن يا هرمكا ugu magac weyna oo uga soo tagtay dhulkii Maka
markaasuu yidhi caطaa ibnu abi rabaax taabicigii la yidhaha caطaa ibnu abi rabaax ayaa magaalada dhani hoos fadhisay yuu yidhi wuxuu yidhi min almawaali am min alcarab ma addoommadii ka mid ahaa mase carabtii u dhalatay magaalada makuu ka mid ahaa caطaa ibnu abi rabaax markaasuu zuhri wuxuu yidhi bal min almawaali waa addoon uu yidhi cilmi bartay cilmigiisaa kor u qaaday uu yidhi yaa dadkii reer qurayshe meesha ku noolaa ee carabtii usuusha ahayd ilaaha ka kor mariyey addoon uu hay carab quraysh ah oo u dhashay magaalada maka ma aha inuu yidhi wuxuu yidhi dhulkan basrana ka waran yaa madax u ahaayo magaaladu ay markaa hoos fadhisay markaasuu yidhi xasanu albasri taabicigii alxasanu albasri wuxuu yidhi min alcarabi am min almawaali wuxuu yidhi bal min almawaali asaguna addoonnimuu soo maruu yidhi xasanulbasri laakiin diinkaasaa heerkaas iyo maqaamkaas gaarsiiyuu yidhi carab ma uusan ahayn markaasuu yidhi heer shaamna ka waran yaa ugu magac weynaa makxuul ashaamiyuu yidhi makxuulu shaam yaa ugu magac weynaa min alcarab am min almawaali wuxuu yidhi bal min almawaali asna addoonuu soo maruu yidhi makxuulu shaami laakiin diinkaa heerkaas isagaa gaarsiiyuu yidhi diinka ayaa heerkaa gaarsiiyey markaasuu wuxuu yidhi waman yar'asu ahla alkuufa heer kuufana ka waran yaa markaa ay hoos fadhiyeen markaasuu wuxuu yidhi waxay hoos fadhiyeen ibraahim ibnu yaziid annakhaci faqiih ahli lkuufa min alcarabi am min almawaali wuxuu yidhi min alcarab halkaa sheekhan ka ogahay inta hadda waddamada islaamka oo dhan ragga cilmiga ugu weynaa uguna magac weynaa halkaa sheekhan carabka ogow yidhi yaa ibraahim ibnu yaziid annakhaci ayaan ka ogahay yidhi markaasuu cabdulmelik ibnu marwaan wuxuu yidhi innahu ddiin man tamassaka bihi rafacahu allah waxa saas wax u gelaya waa diinkuu yidhi diinka wey oo qofka maqaam iyo ixtiraam weyn u yeelaya qofkii qabsada ayaana saas noqonayuu yidhi ummadda sharafna ku yeelanaya adduunyo aakhirana ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa uu ku marti qaadi marka walaalayaal diinkaas aanu ku dhegno aadaa bilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu